wuxuu ku saabsan yahay basics of economics asaasiyaadka cilmiga dhaqaalaha. Cutubkan intaan ku dhex jirno waxaan arki doonaa qeexitaano iyo sidoo kale waxyaabaha gundhiga u ah ama asaaska u ah cilmiga dhaqaalaha. Haddaba definition of economics, qeexitaanka economicska ama cilmiga dhaqaaluhu muxuu yahay? Waxaa la yidhi economicsku waa mid ka mid a laamaha ugu xiisaha badan ee cilmiga bulshada. Ereyga economy waxaa la yidhi wuxuu ka yimiday odhaahda Greek-ga ah one who manages a household, ruuxa maareeya qoys ayuu ka yimid. Marka waxaa la yidhi definitionka ama qeexitaanka economicska ma jiro universally accepted definition of economics. Qeex cilmigan economicsku leeyahay oo isla wada aqbalsan yahay dhammaan dadka oo dhan ay isku raacsan yihiin. Definitionkeedu waxaa la yidhi waa controversial, waa mid lagu muransan yahay oo dood bay ka taagtay ninba dhan buu ka eegay. Sababta waxaa weeyaan different economists defined economics from different perspectives. Waxaa la yidhi dhaqaalayahanada kala duwani cilmiga dhaqaalaha dhinacyo kala duwan bay ka eegeen ama aragtiyo kala duwan iyagoo qaba ayay qeexitaan ku sameeyeen cilmiga dhaqaalaha. Tusaale qaarkood waxay ka qeexeen dhanka muxuu ahay hantida, qaar waxay ka qeexeen dhanka muxuu ahay ilaalada iyo badqabka bulshada, qaar waxay ka qeexitaankooda ku saleeyeen dhanka yaraanshaha iyo gabaabsiga kheyraadka, qaarkoodna dhanka korriinka ayay muxuu ahay qeexitaankooda ay ku saleeyeen. Marka qeexitaanadiisu saas darteed wuu kala duwan yahay, mid lagu muransan yahay weeyaan qeexitaankooda, mid la isla aqbalsan yahay ma jiro. Laakiin waxaa la yidhi definitionkeedu sidaa daraad baa la yidhi its definition varies as the nature and scope of subject grow over time. Waxaa la yidhi definitionka iska leedahay cilmiga dhaqaaluhu iska leeyahay wuu isku bedelayaa mar kasta oo nooca iyo dabeecadda iyo sidoo kale scope-ka ama baaxadda cilmigan uu isbedelo waqti uu koro oo intii uu daraasaynayay uu walba muxuu ahaa area goobo cusub u daraasay mar kasta uu koro definitionkiisuna uu isbedelaya. Saa darteed iyo kala duwanaansho xaggaas iyada lafteeda saameyn bay ku leedahay. Laakiin the formal and the commonly accepted definition is as follows. Waxaa la yidhi qeexitaanka caadiga ahee muxuu ahaa badanaa la wada aqbalsan yahay cilmiga dhaqaaluhu waxaa weeye waan ka soo socda. Waxaa la yidhi economics waxaa lagu qeexay waa social science, waa cilmi bulsho which studies about kaasoo daraaseeya efficient allocation of scarce resources. Waxaa la yidhi qoondaynta waxtarka leh ee kheyraadka gabaabsiga in loo qoondeeyo so as to attain the maximum fulfillment of unlimited human needs. Waxaa la yidhi si loo gaadho ama si loo daboolo baahiyaha bini'aadamka ee aan xadka lahayn, si loogu daboolo sida ugu macquulsan ee ugu badan ayaa muxuu ahaay cilmiga dhaqaaluhu ku saabsan yahay. Qoondaynta kheyraadka yar si loo buuxiyo baahiyahan bini'aadamka ee aan xadka lahayn, weliba sida ugu macquulsan ugu badan ee loo buuxin karo ama loo dabooli karo in loo daboolo. Marka waxaa jira haddaba rationals of economics, waxyaabaha asaas u ah cilmiga dhaqaalaha ku fadhiyo foundations u ah. Marka waxaa jira there are two fundamental facts that provide the foundation for the field of economics. Waxaa jira laba xaqiiqo oo asaas u ah muxuu ahaay gundhigu ah laanta ama cilmiga dhaqaalaha. Waxay kala yihiin labadaas oo qeexitaankiisa saan ka fahmin. Human ama society's material wants are unlimited. Waxaa la yidhi baahiyaha adduunye ee bulshada ama bini'aadamku waa unlimited, waa kuwa aan xad lahayn. Sidoo kale midda labaadna waxaa weeye economic resources are limited. Waxaa la yidhi dhaqaalihii ama kheyraadkii dhaqaaleyn lahaayeen oo iyaguna way xadidan yihiin waa scarce. Saa darteed baahiyaha unlimitedka ee aan xadka lahayn si loo daboolo iyadoo la adeegsanayo kheyraadkan yar ee limitedka ayuu cilmiga dhaqaaluhu ku saabsan yahay sidii loo qoondayn lahaa. Cilmiga dhaqaalaha haddaba scope-kiisu ama baaxadda inta uu daraasayo iyaduna sidoo kale waa ballaaran tahay. Waxaa la yidhi the field and the scope of economics is expanding rapidly. Waxaa la yidhi laamaha iyo sidoo kale muxuu ahaay baaxadda cilmiga dhaqaaluhu waa si dhaqso ayuu u fidayaa. Waxaana ka mid ah baa la yidhi mawduucyo iyo arrimo fara badan baa hadda uu ku saabsan yahay oo daraasaya. Waxaa la yidhi waqtiyadii dhowaa laamo fara badan oo cilmigan iska leeyahay ayaa soo baxay oo ay ka mid yihiin muxuu ahaay qayb dhanka horumarka iyo waxyaabaha daraasaysa. Waxaa kaloo ka mid ah muxuu ahaay qayb industrial economics ama warshadaha iyo dhaqaalaha qaybta daraasaysa. Sidoo kale waxaa ka mid ah qaybta gaadiidka iyo waxyaabaha iyo dhanka ilaalada iyo badqabka bulshada. Sidoo kale waxaa ku jirta environmental economics qayb daraasaysa oo gaar u ah muxuu ahaay bay'ada ama deegaanka iyo sidoo kale kuwo kala badanna way jiraan.
Eh, laakiin waxaa la yidhi the core of modern economics waxaa la yidhi xudunta ama dhuuxa muxuu ahaay cilmiga dhaqaalaha hadda cusub waxaa sameeya labada laamood ee waaweyn microeconomics iyo macroeconomics. Microeconomics waxaa la yidhi waxay ku saabsan tahay sida magaceeda dhaqaalaha yar waxay ku saabsan tahay dabeecadda dhaqaale iska leeyihiin baa la yidhi individual decision making units go-aan sameeyaasha ashkhaasta keligooda sida householdska qoyska iyo shirkadaha iyo suuqa iyo sidoo kale warshadaha kuwaas sameeya tusaale waxyaabaha uu macroeconomics uu daraasay waxaa ka mid ah individual income iyo individual price iska leeyihiin ashyaadu waxyaabahaas daraasaya. Macroeconomics kuna iyaduna waa laan ka mid ah economics waxay ku saabsan tahay baa la yidhi the effects and the consequences of the aggregate behavior of all decision making units waxaa la yidhi saameynta iyo sidoo kale cawaaqibta ka dhalata muxuu ahaaye isu geynta dabeecadaha dhammaan go-aan sameeyaasha oo dhan in a certain economy dhaqaale gaara weliba tusaalaan dhaqaalaha waddankaas national income muxuu waxyaabahaas dakhliga waddanka soo gala dhammaan saameynta individual decision making units oo dhan ay isu leeyihiin oo lasku wada dardaray qayb iyuu daraaseeyaa. waxaa jira haddaba erayo ama concepts kaloo muhiim ah oo cilmiga dhaqaalaha dhexdiisa kuwana ka mid marka mid baan u arki doonaa. Scarcity waxaa la yidhahdaa horey baan soo aragnay ereyga waa yaraansho ama gabaabsi kheyraadka oo gabaabsi noqo waxaa la yidhi scarcity macnaheedu waxay ka dhigan tahay the fact that all economic resources that a society needs to produce goods and services are finite or limited in supply waxaa la yidhi waa xaqiiqada in dhammaan kheyraadka dhaqaale ay bulshu u baahan tahay si ay usoo saarto agab iyo adeeg inay yihiin kuwo finite oo xadidan ama limited ah helitaan ahaan inay xadidan yihiin sidaas darteed ereyga scarcity macnaheedu waxay ku turjumayaa baa the imbalance between our wants and the means to satisfy those wants waxaa la yidhi isu dheelitirnaan la-aanta u dhaxaysa muxuu ahay doonitaanadeena iyo sidoo kale meaniska ama hababkaan ku qancin lahayn muxuu ahay doonitaanadeena inay isu dheelitirnaan la-aan baahideenii xad ma leh kheyraadkii aan baahidaa ku dabooli lahaydna wuu xadidan yahay. kheyraadka haddaba resourceka waxaa loo qaybiyaa labo free resource iyo sidoo kale scarce ama economic resource labadaas loo qaybiya. resourcega waa free ama kheyraadkana waa mid bilaasha waxaa la yidhahdaa resource waxaa la yidhahdaa decide to be free waxaa la yidhahdaa waa mid xora haddii amountiga ama qadarka bulshadaasi ay heli kartaa uu ka badan yahay qadarka ay u baahan yihiin weliba iyagoon wax qiimaha kaga bixin zero price. tusaale ahaan sunshine waxaa la yidhi ilayska cadceedda qadarka aan u baahnayn qadar ka badan baan yaan heli karnaa weliba inagoo wax qiimaha ku bixin. scarce ama economic resource-kuna waxaa la yidhahdaa waa kheyraadka haddii qadarka la heli karaayay ay bulshada ay haystaay uu ka yaryahay ka ay rabto weliba qiimo muxuu ahaye bilaash weliba iyadoo muxuu ahaye qadarka ay u baahnayd inay bilaash ku heshahay qiimo qadar ka yar bay haystaa kuwa noocaas la yidhahdaa markaa maxay scarce resource ama economic resource baa la yidhahdaa. economic resource-ka hadda waxaa loo kala qaybiyaa maxay 4 categories 4 qaybood baa loo kala qaybiyaa waxaa ka mid ah labor waxaa la yidhahdaa dadaalka dhanka maskaxeed iyo midka duleed ay biniaadamku sameeyaan si wax soo saar loogu adeegsado soo saarka iyo sidoo kale baahinta iyo sii qaybinta agabka iyo adeegga. landin waxaa la yidhahdaa dhammaan kheyraadka dabiiciga ee loo adeegsan karo in wax lagu soo saaro kadibna wax soo saarkaas lagu sii baahiyo ayaa la yidhahdaa muxuu ahaye ama lagu sii qaybiyo ayaa landile. capital iyaduna waxaa weeye waa dhammaan all waxaa la yidhaha manufactured goods waa dhammaan wax agabka ay biniaadamku sameeyeen oo dhan sida warshadaha iyo baabuurta iyo muxuu ahaye kaabayaasha dhaqaale waxyaabahaas loo adeegsado si in agab kale loo soo saaro tusaale guryaha oo kale ayaa ka mid ah si agab kale loogu soo saaro dhammaan wax kastoo biniaadamku sameeyey oo usii adeegsadaan inay agab kale ama adeeg kusii bixiyaan ayaa la yidhahdaa capital. entrepreneurship iyaduna waxaa weeye waa hal abuurnimo ganacsi ama waa xirfado iyo wax soo saar hal abuurnimo gaara oo ruuxu u baahan yahay in dhammaan saddexdan hore aan soo aragnay economic resource-kan soo aragnay landing iyo labor iyo capital isku dubarido kadibna la yimaado muxuu ahaye hal abuur ama ganacsi u gaara kadibna uu khataraha ka imanayo dhan u qaato. marka choice scarcity waan soo aragnay hadaba choice-na waxaa la yidhahdaa waxaa la resourceski waa scarce way xadidan yihiin then output will be limited wax soo saarka lasoo saarayana dee wuu xadidnaa maadaama scarce kheyraadkii uu xadidan yahay output-keenuna wuu xadidnaa. haddaba if output is limited output-kiina haddii uu xadidan yahay baa la yidhi then we cannot satisfy all of our wants
dhammaan doonitaankeena iyo baahiyaheena oo dhan ma wada buuxin karo saa darteed choice must be made in kala doorasho waa in la sameeyo oo keebaa aynu soo saarnaa keebaan yarayn waa inaan soo saarnaa maxaa la yidhi problem of scarcity ama dhibaatada yaraanta daraaddeed ee shirkadaha ashkhaasta dowladaha iyo dhammaan waxay ku wada qasbayin baa to choose as to what output to produce wax soo saar keebaan soo saaraa mid bay noqon in laga tanaasulo keen soo saara in lamadu soo saari kareen sidoo kale in what quantity qadar intee leeg baan kusoo saaraa iyo what output not produce output fiican bay tahay inayna soo saarin oo iska ka tanaasula marka choice waa in la sameeyo leen kheyraadkii kuma filna inaan dhammaan baahiyeen oo qadin opportunity cost waxaa la yidhaha iyadana markaad ka tanaasusho mid ka mid a muxuu ahaay labadii wax soo saar qiimihii kan aad daysay aad ka daysay ku kacay qiimuhu ku kacay baa la yidhaha opportunity cost marka waxaa la waa amount ama value of the next best alternative that must be sacrificed waxaa la waa bedelka kan aad soo saaratay kii bedeli lahaa ugu fiicnaa qiimihii uu ku bixi lahaa ee hurtay ayaa la yidhahdaa muxuu ahaay opportunity cost si aad u hesho baa one more unit of product hal product oo dheeri oo productigaas aad hesho waa inaad mid kale oo kheyraadkan muxuu aad ku soo saari lahayd waa inaad aad daysaa production possibilities frontier waa car waxaa la yidhaha isaguna waa carka ama waa graph muujinaya isku xidhanka baa le agabka faraha iyo adeegyada ay bulsho soo saari karto kheyraadka iyo farsamada teknolojiyada iyo kheyraadka haysato iyadoo lagu xisaabtamayo muxuu ahay carka ama graph muujinaya weyaan waxaa jira haddaba basic economic questions su-aalo asaasi oo dhaqaalaha dhexdiisa muhiim ah waxaa la yidhi economic problems faced by economic system due to scarcity of resource are known as basic economic problems waxaa la yidhi su-aalaha nidaam dhaqaale uu wajaho kheyraadka oo yaraaday daraaddii ayaa la yidhahdaa basic economic problems kale marka masalooyinkan ama su-aalahan dhibaatooyinka waxaa la yidhi waxay common u yihiin ama dhammaan waxaa ka siman all economic systems dhammaan nidaamyada dhaqaale oo dhan saa darteed waxaa loo yaqaanaa central problems of an economy waxaa la yidhahdaa dhibaatooyinka dhexaadka waa dhaqaala saa darteed bulsho kastaay waa inay muxuu ahay su-aalaha soo socda waa inay jawaab u heshaan su-aaluhu maxay yihin markaa su-aasha koowaad waxaa weeye what to produce ilan kheyraadka waa xadidaya soo maa what to produce maxay tahay in lasoo saaro su-aashan waxaa la yidhahdaa sidoo kale waxaa la yidhahdaa problem of allocation of resource dhibaatada la xidhiidha muxuu ahay maareen dhanka qoondaynta kheyraadka waxay ka dhigan tahay every economy must decide which goods and in what quantities are to be produced dhaqaale kasta waa inuu go-aamiyo agabkee ayay tahay inaad soo saaro qadar intee leeg bay tahay inaan iyada sidoo kale kusoo saaro waa in la go-aamiyo su-aasha labaad waxaa weeyaan how to produce sidee baa loo soo saari lahaa waa farsamadii la adeegsanaya su-aashan waxaa la yidhi also known as the problem of choice of technique waxaa la yidhi waa waxay la xidhiidhaa doorashada maxaa farsamada adeegsan lahayd ma qaab manual oo gacana lagu saari ma waxaa lagu saari waxaan adeegsanaynaa bulshada farsamada iyadana sidoo kale waa in la doorto su-aasha saddexaad ay tahay iyadana in la isweydiiyo waxaa weeyaan for whom to produce yay tahay in loo soo saaro kheyraadkan productigan dadka macaamiisha ama adeegsayaasha muxuu ahay marka u dambeysa adeegsan doonee loola jeedaay waa waxaa la yidhi sidoo kale iyadana waxaa loo yaqaanaa the problem of distribution of national product soo saarka waddanka su-aalahan sidee loo baahin lahaa halkii dadkay tahay in la gaarsiiyo waayo waxay la xidhiidhaa how material product is to be distributed among the members of society sidee bay tahay in productska lasoo saaray xubnaha bulshada sidee tahay in loogu qaybiyo marka dhaqaaluhu waa inuu go-aamiyo tusaalahan whether to produce for the benefit of the few rich people or for the large number of poor people waxaa la yidhi waxaan lasoo saaraya ama agabkan productkan lasoo saarayo waxaa loola jeedaa dadka yar muxuu ahaay haysta muxuu ahaa taajiriinta ama dadka yar qaniga keliya ayaa loola jeedaa inay ka faa'iidaystaan mise waxaa loola jeedaa dadka tiro ahaan badan ee faqriga yaa loola jeedaa oo loo soo saaraya dee qaabka loo saaraya kala duwanaa marka economic systemska hadda waxaa jira nidaamyo dhaqaale oo fara badan oo muxuu ahaa caalamka jira nidaamyada dhaqaale marka waxaa ugu caansan saddexdan midkood waxaa la yidhahdaa capitalist economy sidoo kale waxaa loo yaqaanaa free market economy ama free market system loo yaqaano magaca dambana sidoo kale loo yaqaana oo asalkiisu yahay faransiis uu yahay nooca labaadna waxaa la yidhahdaa command economy sidoo kale waxaa loo yaqaanaa socialistic economy iyadana loo yaqaano nooca saddexaadna waa mixed economy marka saddex nidaam ee dhaqaale waxyaabo mid kasta wuxuu leeyahay waxyaabo uu ku fiican yahay iyo waxyaabo uu ku xun yahay bay leeyihin inta farqiga ugu weyn ee u dhexeeyana waxaa weeyaan waa heerka uu leeyahay
heerka fargelineed ee dowladdu intee leeg buu dhan yahay ayaga farqiga ugu weyn ee ku kala duwan yihiin waxaa jira haddaba decision making units qaybo la yidhahdo go-aan sameeyayaal dhaqaalaha dhexdiisa waxaa jira baa la tiri decision making units in a closed economy nidaam dhaqaale oo xidhan wuxuu leeyahay 3 go-aan sameeyayaal closed economy waxaa la yidhahdaa dhaqaale xidhan oo aan dhaqaalayaasha kale ka baxsan aan wax macaamil aan la sameyn marka dunidan hadda globalizationka daraadii ma dhici karta waa lahaa inuu dhaqaale xidhan dunida hadda ma jiro inta badan waa isku wada xidhay dhaqaalihii dunida waxaa jira markaa saddexdan decision making units waxaa kamid ah households qoyska kamid ah shirkadaha kamid ah iyo dowladda marka household go-aanadu sameeya maxay yihiin waxaa la yidhi household can be one person or more waxaa la yidhi qoysku wuxuu noqon karaa hal ruux ama in ka badan dadka waxaa la dadkaasoo ku nool ama shakhsigaasoo ku nool under one roof hal guri hal saqaf hal sanqaf ku hoos nool cagranta hal guri ku wada nool hal qoys ama hal ruux ama laba iyo ka badan oo hal meel ku wada nool baa qoyska yahay and make joint financial decisions go-aano maaliyadeed oo isku xidhan oo wada jiraan sameeya marka household make 2 decisions waxaa la yidhi qoysku wuxuu sameyn karaa laba go-aan labada go-aan ay sameyn karaa waxaa weeyaan selling of the resource kheyraadka ay iska lahayn inay iibiyaan iyo oo iyagu inay wax iibiyaan kheyraadkooda iibiyaan iyo sidoo kale inay agab iyo adeeg soo iibsadaan shirkadaha iyo waxyaabaha kale iyo adeeg iyo agab ka iibsadaan go-aan sameeyaha labaadna waxaa weeyaan waa shirkadaha waxaa la yidhi firm waxaa la yidhaha waa production unit that is economic resource to produce goods and services waxaa la yidhi waa qayb wax soo saar oo adeegsata kheyraadkii dhaqaale si ay agab iyo adeeg ay usoo saarto adeeg usoo saarto adeeg agab usoo saarto adeegna u bixiso marka firmskuna sidoo kale baa la yidhi 2 decisions bay iyaguna sameeyaan ama laba go-aan bay sameeyaan midkood waxaa weeyaan economic resourcekii bay soo iibsadaan productskii ay sameeyeen ay maxay soo saareenna dib bay usii iibiyaan go-aan sameeyaha saddexaad waxaa weeyaan dowladda dowladdu waxaa weeyaan waa urur leh awood sharci iyo mid siyaasadeed oo ay ku xakameyn karto saameynna ugu yeelan karto go-aan sameeyaashii hore soo aragnay sida qoyska iyo shirkadaha iyo suuqa sidoo kale dowladdu waxay bixisaa baa layidhi nooc ka mid a agab iyo adeeg loo yaqaano adeegga iyo agabka dadweynaha oo ay bulshada siiso public goods and services waxaa weeyaan ama adeegga iyo agabkan dadweynaha waa adeeg ama agab ay dowladdu gacanta ku hayso dhammaan dadkao dhan ay u wada siman yihiin halkaas waxaa ku eg cutubkii koowaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu